Boqor ayaa waxa uu lahaa wasiir. Wasiirku waxa uu ahaa mid caadaysta oo ku celceliya kelmad ah wax waliba waa khayr. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa boqorkii la jaray far. Wasiirkiina waxa uu yidhi waa khayr. Boqorkii wuu cadhooday. Far ayaabay go'aan khayrku xaguu joogaa. Waxa uuna go'aansaday inuu wasiirkii xidho. Iyadoo ay saasi jirto, haddana wasiirkii waxa uu yidhi waa khayr. Boqorkana waxa caadooyinkiisa ka mid ahayd inuu jimco walba u qaado dalxiis si uu naftiisa u madadaaliyo. Kadib waxa uu dalxiiskiisii ku tagay meesha waxa deganeed koox ku caabudda sanamka. Kadib ninkii boqorka ahaa way qabteen, waxayna go'aansadeen inay gowracaan si ay ugu dhowaadaan sanamka. Kadib markii ay is yiraahdeen gowraca, ayaa waxa ay arkeen fartiisii oo go'an. Kadib waxay isku waafaqeen inaanu sanamka uga qalin si ay ugu dhowaadaan sababtoo ah ma dhammaystirna. Waxa ayna go'aansadeen inay iska sii daayaan. Boqorkiina si degdeg ah ayuu ugu noqday wasiirkii, jeelkiina wuu ka soo saaray. Waxa uuna uga sheekeeyay qisadii, waxaana uu weydiiyey haddii ay khayr ii lahayd inaan kaga badbaado fartayda darteed, waa maxay adiga khayrka kuugu jira jeelka? Wasiirkii waxa uu ugu jawaabay, anigana waxaa khayr ii ah inaanan adiga ku raacin, haddii kale aniga ayaa liiqan lahaa, waxaana noqon lahaa sanamka loogu